والله نيهم تاريخ أهم هذا ما هيو إنه ديت كاس كم أوران كرو لكن مدة أفرت المعلومات أيوه طبعا دقالكو نروح يقول السعودية عن حدنا عن حدنا إن طبعا وارن أي سو جويسي حير العالم أيام حدنا أو كأدن معمول كهرمود دن كذا وحيابون إسك حساسي ودحدي هذا كذا عيد راتي. واقرتي مركا محل لجو عدي كيس كلو وصل حري دنبجا شخصيا عبد الله يو محير اللي انتو أكو عدي سي أما الأوجي هاي إن لو حري أو كيس كاجا وصلك كو هاي محيا هاي. ولا هذا ما هتصنفت موضوعا هرينا وانوها لما كان صوب حي هذا لو نكون علينا إياه أنا نسحب فيها أنا هاي شروع الصحافة قبضتها أيانا قبضتها لا بنك حركة مثلا مركز نقطة نفس دي زلمة مواد بانا هاي يعني لا نحري كرو لنا يعني في دين كرو مركز كهذا إنه صوبته يعني حركة جينا كمبيني جاس أيوة هاو ولا لهينا وهرمود بتاتنا ننوحنا هكو قفتي بنك حركة الصحافة ده بيرسونال أتاك أيانا سميه طبعا هرينا وامشي هذا وانقرية وانا كعلنا إياه وانا مكبس هنا يا مركل الرالي قلنا مرة ديان حيث الصحافة ده أنكو قصود دي كناني هذا هذا نقول هذا الشيء هي وثاني كتابيسي كلي يعني مارسي يعني بنك قوانين تان مشروع لودنك وطالد وإيو من صحافة دو طالبة لكن وحاجبتا وحيا بفر بدن أو أن طبنا إيو وآيا هاي إن لي مريا قوانين تودنك ويالا أو أنا لي مرمين توتالي بولال محاكم إذا عبد الله عراكم إذا وحاكم إذا marka waaran la soo jiro aniga maxay hayda la keeno meeshii saldhiga ama CID marka la keeno xuquuqda qofka uu yani eedaysanaha ahi waa muddo yani kooban oo la yaqaano oo 40 saac haye waxa la igu hayay muddo 16 maalmood oo bilaa xalaaleyn ah oo bilaa waxba ah oo bilaa maxay hayday xitaa aanan qalin warqad la isku dul dhigan oo aanan la oranin waxba la wareysan waxba aanan la baalin haye waxaa kamida khaladaadada kale maxay hayda in inta la waday la geeyay maxay hayda maxkamad cid maartay xukun ugu ridiyo waxba toona aanay jirin haddana 24 maalmood gaal shire in aan dhex fadhiyay oo aan la xidhnaa khaatiliin dilayaal xabsi daa'in iyo yani dadkii deeqan ugu mashiidiyeysnaa in aan la xidhnaa oo dad maxkamadii ay soo xukumeen lagu geeyay oo xukun ay ku dhacaan yani xukunada waliba ku dhacay dad loo haysto dilal wariyaal dad loo haysto maxay ahayday dilal madaxeed dad loo haysto yani waad fahmi kartaa de wixii allaali wixii la xukumayay oo idil in dhexda laga geeyo aanan la siinin xuquuqiyaadkii yani de xasanadan saxaafadda ama wariyanimadu ay lahayd aanan la siinin yani waxbaba haddana maxkamadii dhankeedii wax xukun aynaanu haddana ka dhicin oo bilaa xukun anoo ah haddana laysii daayay walow uu jiray macaamilaad uun ku saabsan dhan yani maxay ahayd dhanka waalidiinta iyo maamulka ama kambaniga hormuud waa gartay marka maxaa kaloo aada la kulantay intii aada xirnayd walaal waxyaabaha aan la kulmay de waad dareemi kartaa muddo 40 maalmood oo qof bilaa حرية بلا اختيار بلا محوها هاي بلا يعني حرية والدريمي كرتار مضمونة لحرا محوها هاي رك مشي دي النوع عايهم قوت المام يوم متخو غير بقول سنة 30 سنة 6 سنة الحكومية ورك قار waxay sheegayaan in rag kamid ah qaybaha xiraalinta inay xilliyada habeenkii kuugu iimaanayeen xabsiga oo ay arrimo gaar ah kala hadlayeen maxaa aad ka wada hadlayseen haddii ay jirto ma fahmin halka igu cili arrimo gaar ah sidee arrimo kiiskaaga ka baxsan iyo eedda hormuud idinka dhaxaysa in mararka qaar doodo quseeya ay ku soo gaarayeen ma jirtaa weli waan jeclaan lahaa walaal inaad aada igu sii cadayso ma jiraan in maadaama xeelalinta dembiga lagu soo eedeeyay adigina aad sheegtay oo aad qirtay in qawaaniinta saxaafadda qodobo kamida aad ka talawday saas darteedna aad raali gelinna bixisay
suuragal ma tahay in ay jiraan oo ay dhab yihiin warar sheegaya in adigoo weriye cabdullaahi muuse kalgacal in su-aalo lagugu weydiinayay oo kiisas aadan adigu wax ka ogeyn in lagaa su-aalo weydiinayay oo lagu soo noqonayo ma jiraan? anigu mid hal xabo ayaa jirtay oo ahaa hadalkii aan jeediyey cillad maxay ahayday markaa mid looga dhigayay oo ahaa nin muxuu ahaaye ka tirsan meesha la yidhaahdo maamulkii wuxuu ahaa meesha la Dar es Salaam oo dil loo geystay yani la yaqaano dadka maxay ahayday dilalkaa geystay oo de macruufa in kiiska laynagu daray oo la yiri hadalkaa aad adigu jeedisay ayuu ka dhashay dilkaas dabcanna ma aanay dhicin oo de ma aanan ogolaan loomana haynin wax caddayna marka wax ka baxsan yani kiiskaas anigu xagga saxaafadda aan ka hadlaya anigu qodobkaasaan jiri wax ka baxsan oo lay weydiiyey intaadaa ka jirta. marka maxaad adigu ka aaminsan tahay sababta lagu weydiiyey ninkaa dilkiisa? dabcan wallahi waa wax yani la yaaba ayay aniga nafsadeeda igu noqotay because of anigu maxay ahayday ma yihiin muxuu ahay nin qori iyo hub iyo wax qaata mana yihiin maxay ahayday lamida waxyaabahaas ma garan karo dabcan keliya uun xilligii dooda anigu aan sii daayay iyo waxaa kulmay muxuu ahaay ninkaa dilkiisa marka waad fahmi kartaa waa un kiisku adkayn baan u dareemay anigu inay ahayd lakin alxamdulilah maba aanay dhicin waxayna ku dhamaatay un isfahan dhanka waalidkay iyo maamulka kambaniga walaalahay government. ma la hadashay qaybihii garsoorka maadaama nin lasoo eedeeya aad ahayd oo maxkamad aan la geynin muddo aada u badanna la xirnaa oo xorriyaddii laga qaaday arrintaasi inaanay sax ahayn maadaama ay caddahay laftaadu ma u sheegtay inaad kiiskaas caqabad inaad kala kulantay oo aadan kiiskaa inaad dacwo ka qabto oo xadgudub aad dareemayso? wallahi horta waa runtaa xilligaas anaanu maxbuus baana iskala ahaaba waxna kalama aanan hadal keliya hal maalin baa laygu soo hadalqaado la weydiiyey oo maalinta waan 6 saaco waxaa idhaanu shaqo ku marihi mana yihiin muxuu ahaaye nin nooca ku dhaqma laakiin wixii markaan inta soo baxay wixii ka dambeeyeyna arrintaas iyadaa horta maba aanan gelin walaal waanan dareemi kartaa biidni illahi yani in aanan hadda dabagalkooda iyo xilligii yani la dabagelayayba inaanay ahayn sababtoo ah baahiyaadka iyo caqabadaha hadda walaal wadanka ka taagan baaba aada iyo aada u cadkiranba. ma jirtaa rag hormuud ka tirsan inaad isla hadasheen inta aada xirnayd? wada hadal sidee ku saabsan markaa? oo teleefono qaarkood aad ku wada hadasheen qaar ay xabsiga kugu yimaadeen oo aad ka wada hadasheen arrinta ninkii la dilay ka shaqaynayay Dar es Salaam iyo arrimo kale oo ku saabsan doodaadii? maya. waa gartay hadda kalgacal banaanka ayaad joogtaa xorriyadaadii baad heshay haddana waxaad tabasho ka muujinaysaa ood cabasho ka tahay dawladda oo aad leedahay muddo dheer baan xirnaa xarigaas oo aanu ahayn mid ay maxkamadda xukuntay marka maxaad hadda dalbanaysaa ood dawladda u jeedinaysaa oo fariin ah? walaal waa mahadsan tahay fariin hadda gooniya oo maxay ahayday aan leeyahay nuucaaya ma jirto kolley uun qareemo ayaa jira oo maaragtay hadda duulay ka dhigo un arrinta geli doona marka oo ku aadan bal de wixii tabashooyin ah ee aan qabo iyo sharcigu siduu ahaa marka insha allahu tacaala kolley dib baan arrimahaas ay yani u dhigi doonaa. marka kiiskaagii in dib loo furo oo tabashadaadii sharciga la geeyo ayaad ka shaqaynaysaa mise? tabashadaydu dabcan anigu waan kuu sheegay mid anaga ku gardaran oo ah kambanigaas dhankiisa waanan aqbalay laakiin xeerka aniga laymarsiiyey ay dawladdu ila martay totally khalad buu ahaa kambaniga nafsadiisana khalad baa laga galay because of 40 maalmood kambanigu gudihiisu xaq wuxuu u lahaa in maxay ahayday ama eediisi meel loo saaro ama wax soo kala caddaadaan marka waxaad fahmi kartaa waxyaabo fara badan oo waxaa jira un dhanka CID-da udoo hadda la bedelayba maamulkii markaa baarista qaybteeda hadda xilligaa hayay haddana kolley un haykalku waa haykal dawliya insha allahu tacaala waanan tabanayaa dhib weyn in halkaa lagaga geystay aada iyo aad baan u tabanaya walaal.
handadaad ma la kulantay mararka qaarkood lagu handaday oo intii aad joogtay CID da oo aan lagu gudbin qaybta kale wallahi handadaado hadda aan si rasmi ah u cadeyn karo ma jiraan oo aan kaliya ka ahaynin uun in yani kiiskaas hadda aan ku sheegay ee ku aadan ninkaas dhintay arrimihiisa aanan ahaynin inta kale laakiin waxba normal wax dhibaato oo kala kulmo hadda sheegayna habeeraati ma jirto yani sheegay marka le maaha yani waxaan qarinayaa waxba toona maartay xitaa markaan CID ku jiray kuma aanan xidhnaynin qolalka xun yani la isku xidho meel barxado banaan aan iska joogay kaliya xaq xuquuqda aan lahaa ee aan waayay waxyaabaha kamidka waxaa kamid ah in aan waxay ahayd anigu ma yihiin nin dhumaya dhinacana oo magaalada degan laga yaqaano in maxkamadda ay garto ama yani dood ay ka socoto aniga oo banaan joogta ayaan xaq u lahaa because of qofka xasaanada ama magaca leh waxay tahay magaciisa damaanada waa lay diiday oo way diiday maxay ahayd markaa hay'adda CID du yani dhankii baarista ragga u qaabilsanaa way diideen in aan xuquuqda noocaaya aan helo xitaa in aan damaanad la isiiyo way diideen oo ahayd waxyaabaha aan xaq u leeyahay dabcan waxaan dareemayay in uu jiray pressure gooni oo la isaaray maxaa cadeynaya oo ku ogaatay in si gaar ah lagu bartilmaameedsanayo pressure-ku ku gaar ah maxaad ku ogaatay Cabdullah waxaa kamid ah waxyaabaha ku sheegay mar haddii aanan la ogolaanin in aan maxay ahayd damaanad aan helo oo dacwadda maxkamaddu ay ka socoto aniga oo banaankiisa xilligii la ballamada aan imaado yani waa fahmi kartaa oo inta haddii la diiday aan ahayn la yaqaano halkuu degan yahay la yaqaano magaciyo muxuu ahaayey dekulay oo ninkii ummadda ka mudan yahay la og yahay labo aan codsaday in damiin aan la imaado oo damiin yani aan keensado haddii magacaygu damiin noqon waayey ويسلنا وهي يعني بالكودة إن أن لا ما ضد إلى ما أصحابه ما بنوع الدوران بها هذا الضمانات يسمى يدمن اللي يجيبي والثاني تفاعل كانوا على السورية كتير